وفد بلارن uu hogaaminayo Dr. Maxamed Rashiid Sheikh Xasan oo isagu ah musharaxa xilka madaxweyne ku xigeenka xisbiga u ciiday Somaliland ayaa waxay soo gaareen wadanka Jarmalka iyagoo ugu dambeyntiina kulan ballaaran la qaatay jaaliyada reer Somaliland kulana kulmay magaalada Bonn ee wadanka Jarmalka wafdigan kulanka ay la qaateen jaaliyada reer Somaliland ayaa waxa looga wada hadlayay xaaladaha guud ee ka jira siyaasadda gaar ahaan marka laga hadlayo deegaanada Somaliland iyadoo wafdigan uu horkacay Dr. Maxamed Rashiid oo ka koobnaa wufuud kala duwan oo ka tirsan xisbiga u cid ay la wadaagayeen jaaliyada reer Somaliland ee muddo ku noolaa wadanka Jarmalka aragtida siyaasadeed ee ugu dambeeyay ka jirta deegaanada Somaliland marka laga gudbo aragtida siyaasadeed ay soo gudbinayeen madaxdii ka socotay xisbiga u cid dhinaca kale waxa kulankaasi ka hadlayay in badan oo ka tirsan jaaliyada reer Somaliland oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha guud ee jaaliyada wadankan Jarmalka ku nool reer Somaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga u cid ee jaaliyada wadanka Jarmalka balan idin soo gudbiya qaar ka tirsan aragtiyadii ay halkaasi ka jeediyeen labada gudoomiye iyo sidoo kale dadweynihii ka soo qayb galay goobta kulanka ay ku wada yeelanayeen madaxda xisbiga u cid ay soo gaartay wadanka Jarmalka iyo jaaliyada reer Somaliland ee wadanka Jarmalka waxa weeyaan waxaan ku noolnahay wadanka Jarmalka inta badan marka aan la kulano waxaan la weydiiyaa sababta ay doorashadii dib ugu dhacday marka waxa weeye waxaan la talinaynaa saddexdiis qaran in ay doorashadii mar dambe dib u dhicin oo ay waqti sida ugu dhaqsaha badan leh doorashada loo qabto waxyaabo badan oo ay hore ugu sheegeen oo inoo soo gudbiyeen oo farabadan ayaa jiray waxa kale oo jiray xitaa waxyaabo kale oo cusub oo iminka aan horeba u ogsooneen oo sida jaaliyada reer Germany aanay ogsooneen oo aanay ogeyn oo ay kamid tahay sharcigii ama constitution-kii wadanka ay ku dhaqi lahayn istiraatiijiyada dhow waxaan si farxad leh oo sharaf leh u soo dhaweynaynaa xisbigeenan u cid ee Somaliland dadka shacbiga maanta hadii television kan imaatire Somaliland ay daawanayaan inay dib u xasuustaan wixii ay soo mareen in xasuusano qofku wuxuu soo markaa xasuusto kadib wuxuu markaa eegaya maanta jooga maamulku sidii yahay ama maamulkana maanta raacna mise isbedel baan u baahanahay marka laga soo gudbo aragtida kala duwan ay soo gudbiyeen gudoomiyaha jaaliyada reer Somaliland ee wadankan Jarmalka iyo gudoomiyaha jaaliyada xisbiga u cid ee maanta kulanka la qaadanayay jaaliyada reer Somaliland ku nool wadanka Jarmalka iyo dadweynihii kale waxa goobtaasi ka hadlay madaxdii ka socotay xisbiga u cid oo iyagu u diyaarsanaa sida ay aragtiyo badan ama jawaabo badan ay u siiyaan dadweynaha reer Somaliland ee wadanka Jarmalka ku nool waxaan imika idin soo gudbinaya qaar ka tirsan mas'uuliyiintii goobtaasi ka hadashay ee ka socotay xisbiga u cid ee bariyaha iyagu socdaan la ku mareeyay qaar ka tirsan wadamada Yurub waxa jirta muddo bay nagu soo noqnoqonaysay serfarkii natiijadii doorashada dib baa loo dhac dib bay haddana u dhacday imika waxa socday isku shaandhayntii iyo kala haadintii serfarka natiijada ka soo bixi doonta natiijada ka soo bixi doonta laguma wada qancayo waxaan lagu qancayn gobol ahaan baan lagu qancayn gobolka Awdal ma doonayna burco ka badato gobolka Hargeysa burco ma rabtayna Hargeysa ka badato natiijadu markay soo baxdo gobol ahaan baa loo diidi doonaa markaad ka soo degto haddana waxa dhici doonta in reer ahaan challenge ka dhaxeeya in loo diido la yiraahdo anaga nama afcada hadaan la reebo waxa loo diidi doonaa ugu dambaysa xisbiyada saddexda xisbe dalka ka dhisan inay qaar iska dhaxarki waayaan inaanay dantooda ku jirin way diidaan marka in laga midaysnaado la ogaado arinta waayo waxa ku xidhan wax ka weyn inta reerka iyo xisbiga iyo gobolka waxa ka weyn danta Somaliland maadaama xisbigan u cudna siiyay chaanisyo badan oo dumar hadaan kaga faa'iideysano waxaan jeclaysanaa inaanu waqtiga ka faa'iideysano ama sidaan wadankii wax ugu qaban lahayn ama dadka u caawin lahayn aan kaga qayb galnaa anaguna hadii ilaahay raado doorashooyinkii maadaama aan qurba joognahay oo aan doorashadii ka qayb gali karin inaan siyaabo badan oo kale uga qayb galno importantuna waxa weeyaan amba socod laalkaygan aan Jarmalka joogno wuxuu yahay inaan message-kayga gaarsiino dadka meel kasta ay joogaan hadaan cod sameyn karin dhaqaalihii baa lagu taageeraysaa taasina waa arinta labaad ee noo sameyn karaysaa kii gudaha joogaana wuxuu oran karayaa dadka halka jooga ragaasa mana wax qaban karee dee la shaqeeya marka runtii waana lagu qinxantaa idinkuna waxa laga yaabaa inaad baashi iska dheeraysan siyaasadda tiradaan waa baashi anagu shaqo ku meelin marka baashi ku soo kula dhiirada haddii aan ku guuleysano talada dalka waxaan soo dhaweynaynaa dhalinyarada iyo haweenka halkanba waa ogtihiin imika dagaalo ayaa wadankeenu soo maray burbur buu soo maray haweenka ayay ahaayeen kuwii dhisna ilaahuma imika dahabshiil la tago la eego iyo xawaaladaha inta qof
dira ragga waxa la helaya faraku tiris laakiin dumarka ayaga odaxooda ugu dambeyntii kulanka maanta dhex maray jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku nool wadanka Jarmalka iyo madaxdii ka socotay xisbiga UCID waxa ka hadlay musharaxa xilka madaxweyne ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID ee Soomaaliland Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan kaasoo isagu dhinacyo badan ka taabtay arrinta guud iyo midda ugu dambeysay ay leeyihiin xisbi ahaan ay ku aadan siyaasadda bariyahanba ka karaysa deegaanada Soomaaliland taasoo ugu horeyso doorashooyinkan hadba dib u sii dhacaya iyo himiladooda ay hiigsanayaan ugu horeysa socdaalka dheer ay ku wareegayaan qaaradda Yurub iyo dunida laguna raadinayo madax banaanida Soomaaliland Dr. Maxamed Rashiid oo aan waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelanay markii uu soo afmeermay oo kulankii ay la yeesheen jaaliyadda reer Soomaaliland ayaan wax ka weydiinay shirkii uu la qaatay jaaliyadda wax ka soo dhalaalay iyo hadafkooda siyaasadeed ee qaaradda Yurub maadaama ay bariyahan ku wareegayaan waxa uu ku salaysan yahay jaaliyaddan iyo jaaliyadda badan oo Soomaaliland waa dadka taageera ee dadka xagga ku dhaqan inta badan noloshoodu ay ku rakiban tahay marka inaan ogaano inay wadanka la socdaan taa waxaan ka fahamnay wax badan waxaan ka soconay inay la socdaan waxna inayna la soconin taa waxaaba badan marka annaguna aanu faa'iideynay waayo wararkii ugu dambeeyay ayaan siinay waxayna in badan ku yimaadeen su'aalaadka ay weydiinayeen oo meeshii ay wax ka doonayaanba wayna weydiinayeen taas horta taa weeye maxaan anagu ka faa'iideysanay waxaan ka faa'iideysanay halkan waxaan u dhisnay gudidayadii UCID baanu furnay Jarmal ayaanu dhisnay oo taas annaka noo ahay faa'iido weyn waxa kale oo iyadana muxuu ahaa muhiim ah oo aanu soo bandhignay barnaamijkeena mudooyinkii ugu dambeysay saddexda xisbi ee UCID kulmiye iyo udub ayaa waxay u muuqdeen inay siyaasadoodii ka jirtay gudaha Soomaaliland ay imika u muuqatay inay ula soo wareegeen jaaliyadaha ku nool wadamada dibadda oo kuwaas oo ay imika u muuqatay inay ka raaridayaan hadafkooda siyaasadeed ee ka jira kuna aadan hanka ay ku doonayaan mid waliba inuu ku hanto doorashada had iyo jeer dib loo dhigo ee ka jirta deegaanada Soomaaliland iyadoo in kastana aan la saadaalin karin xaaladda siyaasadeed ee saddexda xisbi ay ka karinayaan qaaradda Yurub saameynta ay ku yeelan doonto deegaanada Soomaaliland ee doorashada dhabta ah ay ka dhici doonto maadaama aysan cod ka bixinaynin jaaliyadaha ay kula kulmayaan qaaradda Yurub ama wadamada kale ee dibadda Cabdiwali Ibrahim Gareere Universal TV Bonn Germany